السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتنا السلام يا ملبا جوجتان مقعي وباشا عبد القادر موسى channelka daawanaysan waa baashi Fix Cryptofolio channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar hadii asxaabta horay uga halkan uga tirsanayd aad kamid tahayna asxaabtada mar labaad u share garee oo la wadaag runtii halkan saan uga barateen badanaa waxaan kusoo gudbinaa cryptocurrency-ga forex trading-ka iyo runtii wax walba oo online-ka la halmaala oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karto asxaabtii nagu xirnayd runtii halkaan nagala socotay way ogeyd badanaa waxa weeye waxaan soo dhignay fursadihii ka banaanaa cryptocurrency-ga waayihii u dambeeyay waxaan xoog saarnay inaan asxaabta la wadaagno suuqa cryptocurrency-ga sababtoo ah waxaan dhihi karaa waa suuqa ugu riskiga yar runtii faa'iido markay noqotona ka faa'iido badan waxa weeye suuqyada kale asxaabta waxa weeye nala socotay runtii waxaan la wadaagnay lacagihii ugu macquulsanaa oo ay ka faa'iideysan kareen ama coinskii ugu fiicnaa ay ka faa'iideysan kareen oo runtii aan isdhihi karin markaas fursadaha ugu fiican bay leeyihiin runtii waa ku laaban karnaa channelkeena YouTube-keena waxaan soo gelinay coins runtii laga faa'iideysan karo oo maantana ah coinska hadda dhaqaaqa ugu badan sameeyay ama waxa weeye waayahanba lacagaha aad la wadaagno waxaa ka mid ah Bitcoin-ka XRP Solana lacaga fara badan ayaan runtii idin la wadaagnay asxaabta waxa weeye aan soo daawan fiidiyoyaashii hore oo aan ka soo hadli jirnay cryptocurrency-ga way soo daawan karnaa waxaan sheegnay Bitcoin in ay gaari doonto 100,000 runtii fiidiyowga aan kaga hadlayay xilligaas YouTube-ga aan soo geliyay halkaan muuqaalkan ku soo dhex diri doona insha Allah hadii la yiraahdo qofkii ka maalgashaday 19 ku maalgashaday maanta runtii waxa weeye lacag fiican ku haya marka lacagta hadda maxaa ka sugeysaan lacagta hadda waxa ka sugtaan Bitcoin-ka waa lacagta ugu horeyso number 1 noo ah maanta waan idin kula talinay inaad maal gashataan soo Bitcoin xagee baa ka maal gashan karaan Bitcoin waxa ka maal gashan karaan hadda waxay maraysaa 37,000 bay maraysaa 37,000 bay hadda maraysaa marka waxa sugtaan Bitcoin maadaama area-dan ay jibisay oo ahayd area aad u adag oo mar laga soo celiyay hadda fiirisaan in ay dib u jibisay way jibis hadda maxaa sugnaa marka in yar oo pullback ah oo area-da la jibiyay in waxa weeye dib loogu soo nasto halka markii la marayo ilaa 33,000 ay dib ugu soo laabato waxa uu qaadan ka dhan ilaa all the way 69,000 waxay u baahan tahay markaan in la jibin doono hadii la jibin waayo waa macquul in dib loo soo laabto kadibna mar labaad la jibiyo halkaasna waxa weeye uu rafasho ay ka dhacdo kadibna korsa loo aado anaga falanqeynayna Bitcoin runtiina waqtiisa u fog ma ahayn markii aan ka hadlaynay Bitcoin markii aan dhahaynay almost waxaan u maleynayaa 8 months 9 months aday 1 year waxaan dhamayn kornay ahayd baan filayaa in Bitcoin ay 100 u socoto oo laga faa'iideysan karo sidoo kale waxaan ka soo hadalnay XRP fiidiyaashida 90% waa kala soo hadlay waxaan idin sheegay XRP ina maal gashataan xilliga waxaan idin sheegay XRP in ay waxa weeye faa'iido fiican waxa weeye laga sugayo xilligaasna waxaan u maleynayaa kala sareynta waxay joogtay almost meelaha dhaxay ku jiray marka haddana waa artaan XRP meesha ay marayso ninkii maal gashaday $200 kaliya ninkii maal gashaday 8 bilood ka hor ama adiga 1 year ka hor maanta waxa weeye 2,000 meelaha u haystaa ninkii $1,000 maal gashadayna konkiis waxa u maleynayaa maanta waa buuxa so mar walba halkan update hadii waxa weeye aad ka noqotid insha Allah waxaan rajeynayaa in fursado ka waaweyn fursadahan ama fursado soo socda baan idin la wadaagi doono insha Allah waxa jira coins waliba XRP hadda market cap-keeda wax walba soo kaceen oo hadda fiirisid market cap-keeda u jeedaan ay tahay 137.35 oo isbedelaysa hadda billion volume-keedana u jeedaan 24 hours u dambeeyay 13 billion wax ka badan baa soo gashay soo aad baa loo iibsanayaa marka insha Allah fursadaha hadda kadib aan idin la wadaagi doono waxa kamid ah lacaga market cap-kooda aad u yar yahay oo uusan 30 milyan uusan ka badnayn oo ah lacagaha badanaa aragtaan oo la soo geliyo blockchain-nada ama platformska Binance crypto.com iyo Coinbase-kaba waa lacag laga soo qadeeyay oo lacagaha laga soo qadeeyay baa adigu mar labaad ka sii qadeynaysaa soo waxa idin la wadaagi doona lacaga market cap-kooda u yar yahay oo platformska intaan la soo gelin ka hor aad ka soo qadeyn kadib meelaha laga helo meelaha laga waxa weeye laga maal gashado intaba insha Allah waa idin la wadaagi doona hadii la yiraahdo sidoo kale lacago mataqaana macquul ah faa'iido fiican ah ka sameyn karaan runtii maanta waxa loo guuray cryptocurrency baa loo guuray waa laga soo tagay xilligii ma garanaysaa lacagta la save garaysan lahaa ama lacagta guriga la dhigan lahaa lacagtaada wax ku shaqeyso inta adigu aad shaqeyn lahayd 24 hour lacagtaada waa inay ku shaqeysaa marka qaacidada mar walba isticmaal lacagtaada inay ku shaqeyso inta aad u shaqeyn lahayd ma garat ina intaas si fiican u fahanteen baan rajeynayaa waa soo fiirin karaan casharadii hore aan ka soo hadalnay maanta marka waxaan rabaa inaan ka hadlo
ma la joogaa xilligii la maalgashan lahaa lacagaha altcoinska ah runtii waxaa la joogaa xilligii lacagaha altcoinska aad maalgashan lahaydeen haddaba see loo maalgashan karaa xilligee la maalgashan karaase see mise lagu ogaadaa in lacagihii isheeg altcoinska ahaa ama lacagaha altcoinska ay faa'iido leeyihiin waxaa ku ogaan kardhaa waxaa jira waxa la yidhahdo bitcoin dominance runtii intiina badan inaynaa fahamsanayn baa u malaynayaa bitcoin dominance waxa weeye mar walbo oo aad aragtid horta charti bay leedahay waxaad isticmaali kardhaa trading view-ga halkaas waxaa ku qoraysaa trading view and then halkaan ku keenayaa meeshaan marka halkaas waxaa ku qoraysaa bitcoin dominance baa ku qoraysaa so bitcoin dominance marka meesha ku wadheed waa u jeedaan bitcoin-ka aad market cap-keedu waa uu socday oo waa la iibsanayay kor buu u socday marka haddaa aragtid bitcoin dominance-ga sida lacagaha loo falanqeeyo lacagaha suuqa loo falanqeeyo salamida waxa weeye ayada laftigeeda loo falanqeeyaa so bitcoin dominance waxa u jeedaan in ay area adag ay gaadhay oo dadkii bitcoin-ka holderska ahaa ay intaas oo dhan bitcoin maalgashanayeen laakiinse calaamadda markaa aragtid in bitcoin dominance uu soo dhacay taa maxay la mid tahay lacagaha altcoinska marka waxay leeyihiin fursad ay ku kacaan taasna waxaan rajeynayaa inaan isla fahnay mar walbo bitcoin dominance uu soo dhaco waxay ka dhigan tahay in markaas lacagaha altcoinska ay yeelan doonaan fursad waxa weeye ay ku kacaan dadkii markaa bitcoin-ka holligareynayay oo bitcoin-ka iibsanayay kor bay u socotay waa kan dadkan halkan chartiga cagaarka waxa weeye dadkii bitcoin bay iibsanayeen bitcoin markay saa usoo seelgarayaan oo yani lacagihii ay kala baxaan bitcoin oo lacagihii intay seel sameeyaan ay altcoinska yararkaasi gashadaan taa waxay ka dhigan tahay isheeg altcoinskii lacagaha yararka oo tirada badan oo waxa yararka oo dhan way soo kacayaan kor bay soo kacayaan marka xilliga waxaa la joogaa la maalgashan lahaa oo aad ka faa'iidaysan lahaydeen so bitcoin-ka haddaan hadda isla fiirino bitcoin itself haddaan hadda isla eegno bitcoin hadda xagee baa maraysa right now baa bitcoin falanqayn doonaa insha allah haddii la yidhaahdo bitcoin meeshay marayso bitcoin intiina xasuusata videoga waa soo dhex gelin doonaa halkan waa la jiminayaa inaan inii sheegay weliba waxaa inii sheegay bartaan halkan haddii lagu yimaado by impulsive xoogan waxaa ka dhigantaa meeshaas in lagu gelayo correction lagu gelayo kadibna laga kacayo runtii fiidiyaashin horta halkan waa soo dhex gelin doonaaba videogaas aan qaraatino noqon doona insha allah chartiga falanqayntiisu waxa wax la barta weeye runtii wax adagna ma aha oo suuqa qofkii forex ka fahansan crypto uu yaqaanaa forex haddaa taqaanin brother crypto waa taqaanaa waa dhammays sababtoo ah waxaan qaabka chartiga loo saadaaliyo forex waa lagu soo bartay cryptodana waxa weeye waa same oo isla qaabkii baa u saadaalinaysaa kaliya qaabka u maalgashanaysid unbaa ka duwan so bitcoin-ka waa ujeedaan bitcoin waxay u socotaa bitcoin qaab waxay u socotaa impulsive hadda ku socotaa so bitcoin waxaa la rajeynayaa marka inay samayso maadaama halkan move uu ka dhacay correction ay soo samaysay move kale uu ka dhacay waxaan oo dhan wuxuu noqonayaa impulsive uu noqonayaa so waa inay soo samaysaa correction so correctionka ay soo samaynayso bitcoin ilaa xageeba imaan kardhaa waxaa jira wax la yidhahdo fibonacci soo qaado lacagtu hadday soo laabanayso waxaa jira qaacida la yidhaahdo halkaa fibonacciga kaga qabo kadibna ilaa halkaas haddaa saadhid kaba soo qaado kale lacagtu waa inay soo laabataa saddex midkood ama waa inay soo laabataa oo timaadaa halkaas oo ay soo laabataa 38% waa inay soo laabataa 38% waa inay soo laabataa oo intay halkaas impulsive ku timaado ay halkaa ka dhaqaaqdaa ama lacagtu waa inay samaysaa inay soo laabato half 50% inay half soo laabato halka ay timaado halkan correction ay ku gasho kadibna waxa weeye ay ka dhaqaaqdo ama inay soo laabato isheeg 60% oo 0.618 inay soo timaado oo halkan intay timaado waxa weeye mar labaad ay ka laabato so bitcoin saddexda possible boy leedahay inay bitcoin intay timaado 59,000 ay kacdo ama inay bitcoin timaado $72,000 ama inay timaado $82,000 so saddexdaasba waxa weeye possible weeye saddexdaasba ka fisha tan waa macquul aniga laakiin tan baan u badinayaa inay imaan kadho bitcoin ilaa iyo 73,000 kadibna ay kici kadho tan xataa laftigeeda macquul weeye inay 86,000 kusoo laabato saasna ku boodo laakiin ogow wax iska socdaa bitcoin iskama sii socon doonto khasab lacagtu waa inay pullback samaysaa soo qofkii forex yaqaana wuu fahansan yahay qaabka waxaan jartinkan iyo waxaan loo saadaalinaya waxa waa baran kadhaa wax saa u weyn maaha hadda insha allah waxaan rajeynayaa inaan koorso kasoo diyaarin doono so bitcoin dominance-ga marka bitcoin dominance-ga dadkii lacagihii bitcoin haystay way soo seel gareynayaan soo taa maxay ka dhigan tahay taa waxay ka dhigan tahay brother fursad waxaa haysataa lacagaha yararka ah
lacagaha yararka aad ku baygaraysid ama aad ku iibsatid adiga mar walba bitcoin ma iibsanaysid $100,000 qofkii dee awoodo u iibsan karaa laakiin anigu dee waxa weeye dad iska dhalinyaro baan nahay taasoo dhan ma haysano so lacagaha yararka ayo $2 jooga $3 jooga 0.5 ka jooga dhowrka zero jooga waa inaad maal gashataa hadhow faa'iida ka samaynaysaa sababtoo ah haddaad tiraahdo waxaan iibsanayaa dhul ah $10,000 dhulka $10,000 weeye hadhow waxaa rabtaa dhulka inaad iska iibso dhulka wuxuu kuu noqday $15,000 buu kuu noqdo so maxaa faa'iiday only 5,000 baa faa'iiday sababtoo dhulka waxaa ka bixisay asoo $10,000 maraya ka war haddaa heshid dhul $500 maraya dhul maraya $500 haddaad helisid ka war hadhow hadduu dhulkaa gaaro ka war 20,000 maxaa faa'iiday 19,000 iyo 500 marka labada faa'iido ma isku mid baa labada faa'iido waxa way isku mid maaha soo weligaa iibso cryptocurrency-ga dhulka jooga ama hoos jooga iibso so bitcoin dominance-gu fafaala waxay muujisay waxay joogtaa meel zone abay joogtaa so zonka qaabka si lagu tagay qaab correction lagu tagay so waxay ka dhigan tahay bitcoin dadka maal gashanaya xagaan xogaa waxa ku jiray ishag sell by sell kii la isku haystaa hadda maxaa soo awdnaaday sellkii so it's gonna drop way soo dhacaysaa brother ilaa ay double bottom-ka in la yimaado dan marka bitcoin intay soo dhacdo hadana lacag kale ay gashadaan saas waa ku macquul insha Allah dula yiraahdo soo lacagaha altcoins-ka xilligoodii fursad ay lahaayeen baa la joogaa oo ka faa'iideysan karaan okay waxaan ku laaban doonaa market cap-keena runtii lacagaha amaal gashan karaan oo aad kula talinaya waxaa kamid ah lacagta la Cardano $1 bay joogtaa waa ka faa'iideysan karaan market cap-keedu almost waxay maraysaa maalinta 9aad bay horta ku jiraa market cap-keedu waa 39.7 bilyan volume-ka 24 hour-kii waxaa la soo geliyay 1.95 bilyan xaggan lacagaha marka rabtina ka eegtid coin market cap waxa lagu qoraa surging so waxa dhan ka ogaanaysaa so ADA waa ka faa'iideysan karaan runtii lacag fursad fiican la weeye sidoo kale waxaad ka faa'iideysan karaan lacagta la yiraahdo listiga hada fiirisid lacagta la Bebe mar walba aynu kugu celiyaa Bebe ana ka faa'iideysta lacagta Bebe la yiraahdo sidoo kale lacagta Dogecoin la yiraahdo waa ka faa'iideysan karaan 0.43 bay maraysaa Dogecoin waa ka faa'iideysan karaan laftigeeda sidoo kale lacagta la yiraahdo Bebe waxay ku jiraa kaalmahan halkaan ay ku jiraa 20 bay ku jiraa laakiin waad arki doontaan kaalmaha hore way soo cirsan doontaa waa iska meme coin kaana kala markuu ku kaco hadaad gelisid sidoo kale $10 haduu ku gaaro ama 10,000 waa la iska seel garayaa meme coin mustaqbal dheer ma sii laha hadaa faa'iido fiican ka heshid waa la iska seel garayaa lacagaha maartay fursadaha laga faa'iideysan sidoo kale waxaan kula talin lahaa lacag la yiraahdo CRO ama crypto.com waxa iska leh CRO crypto.com CRO baa halka ku qoraysaa Cronos baa la yiraahdaa so Cronosna 0.18 bay maraysaa lacagtaasna waad arki doontaa kaalin 32 bay ku jirtaa laakiin waa dhow arki doontaa lacagtaasna meesha timaado volume-keeda oo jeedaan 0.18 bay maraysaa lacagta waa ka faa'iideysan karaan 5 bilyan way market cap-keeda 65 milyan baa la gashay last 24 hours so lacagtaasna ka faa'iideysta insha Allah dula yiraahdo laakiin intaana ka bixin insha Allah 10ka aan dhamayn waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan insha Allah hadda kadib bilaabi doonaa lacago market cap-koodu oo hooseeyo oo meel hoose u joogo marka lacagahaas intaan la soo gelin meelahan waaweyn blockchain-iskan waaweyn intaan la soo gelin waxaa jira waaladyo la soo geliyo oo aad ka iibsan karin soo meelahaas baan ka iibsan doonaa insha Allah dula yiraahdo waana idin wadaagi doonaa cryptocurrency saan hore u sheegayba inta aad u shaqayn lahayd lacagtaada ku shaqayso update-kaas rabaa inaan la wadaago insha Allah dula yiraahdo suuqa cryptocurrency uu soo laabtay faa'iido fiican waa laga sameeyay asxaabadan waa ka faa'iideystay masha Allah hadda kadibna halka update baa ka noqon doonaa channelka waxaan kula dardaarmayaa inaad subscribe saadaan haduu subscribe inay ahayn sidoo kalena aad asxaabtaada u share garaysid assalamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh